Gabaygan waxaa tiriyay Cabdilaahi Sultaan Maxamed Timacade waxa uu ku dhashay Galoole oo ka mid ah gobolka Gabiley sanadkii 1920. Waxa uu ku geeriyooday Kalabaydh oo ka mid ah gobolka Gabiley 1973. Maansadiisu waxay ku sugan tahay wadan jacayl, waano, midnimo iyo qabyaalad nacayb. Gabaygan wuxuu tiriyay markii ay midoobeen Somalilan iyo Soomaaliya, isaga oo nabadda ku tilmaamaya hal. Xilligaas oo xukuumadda Itoobiya ay ku hanjabtay inay soo weerari doonto wadamada midoobay. Timacade isagoo arrintaas ka hadlaya waxa uu yidhi: "Gumaysigu hashuu naga dhaceen gurayay raadkeeda, guyaal iyo guyaal badan hashii gama anoo diiday, goobta istaagtaba hashaan joognay garabkeeda, guuraa habeennimo hashaan geed walba u jiidhay, waxaan soo guclayaba hashaan rag isu soo gaadhnay, gaashaandhiggeedii hashii galowgu eedaamay, hashii geylankeedii rag badan goodku ku casheeyay, hashii labada gaala isbarkani geedh u diidaysay, gacmaa lagu muquunshay xornimo nooma ay garane, garre iyo guntane maantay gees isugu booday, allah noo gargaaray markuu shicibku guulaystay, geeraaradeedii hashaan anigu googooyay, galoolkiyo maraagiyo hashaan kidiga geylaanshay, gaajiyo haraad badan hashaan ugu garaacayay, goortuu sidkeeda go-ay galabtay fool qaaday, iyadoo candhada geejiso godob ku sii daysay, garaadnimaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixine, annagoo gantaalaha dhiciyahoy haysan qori gaaban, hashaan gaagaweynow libaax uga gaban waayey, inaan gorayo cawl uga tagaa waa hal soo gudhaye."